sheekh xasan daheeye axmed oo kamid ah culimada waaweyn ee gobolka Awdal ayaa maanta deeq ka timid jaaliyada gobolada Awdal Salal iyo Gabiley ka soo jeeda ee ku dhaqan magaalada Melbourne ee dalka Australia waxa uu gaarsiiyay dadkii waxyeelada ka soo gaadhay dibadbaxyadii rabshadaha watay ee bila ka hor ka dhacay deegaanada Boorama iyo Lughaya ee gobolkan. deeqahan ay soo direen jaaliyada gobolada Awdal Salal iyo Gabiley ka soo jeeda ee maanta la gaarsiiyay 6 qof oo kamid ah dadkaasi waxyeelada ay ka soo gaadhay dibadbaxyadii ka kala dhacay deegaanada Lughaya iyo Boorama ee gobolkan. waxaa ka hadlay sheekh xasan daheeye axmed oo deeqdan u qaybinay dadkii loogu talagalay waxa uu faahfaahiyay cadada lacagta ay maanta u qaybiyeen dadkani waxyeelada ka soo gaadhay dibadbaxyadaasi iyo sida ay u kala siiyeen. guddoonsiinana lacag deeq oo ka timid Australia magaalada Melbourne la yiraahdo soo direen gabdho maarataanay halka jooga oo gobolka Awdal iyo Salal ka tirsan ay ka soo direen ayna maarataanay warqadda soo xawlaada iyo mid maartay wada wakiil Rawda Maxamed Jaamac waxaan guddoonsiinana dadkii dhibaatada ku gaadhay dhibaatooyin ka dhacay maartay mudaharadii Lughaya iyo Boorama dhimasho iyo dhaawac keenay lacagtaas oo dhan 1485 yaa ku guddoonsiinana sadaqayseen aad iyo aadna waxa maartay ugu mahadnaqaynaa dadka soo xasuustay dadkooda wax soo diray aad baan ugu mahadnaqaynaa waxaan leenahay ilaahay maartay halka ka soo saarteen tuqaaqtaada idinku bedelo caafimaad Allah idinku siiyo nabadgelyo wanaag Allah idinku bedelo. sidoo kale qaar kamid ah dadkii waxyeelada ka soo gaaray dibadbaxyadii rabshadaha watay ee ka dhacay deegaanada Lughaya iyo Boorama ee gobolka Awdal ayaa iyaguna waxa ay ka mahad celiyeen deeqdan lacageed ee maanta soo gaarsiiyeen jaaliyada ku dhaqan magaalada Melbourne ee dalka Australia kana soo jeeda goboladan Awdal iyo Salal. waan mahadnaqaynaa dadka soo diray lacagta ee Australia jooga hablaha u badan ee u soo diray dadkii walaalada ku dhaawacmay mudaharaadka ee soo xasuustay ونودي بالعكتان على شخص بقول له بقول $160 بنودي ونقعنت كوينا ونني ما هاد نقينا إلى هينا خير كذا سواب كذا هاي نسيو. ولا هي نصح حسوستي ونني ما هاد نقينا. وحاولنا عن مصادرتين إنه متوالي وصح حسوستين وحكاية طبعا لها من البدو. عبد الفتاح أحمد هدواناج نيوز مقالة بورما.